waxaan oo wanaagsan daawadayaal maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay filin Amerikaan ah oo lagu magacaabo Accepted, taasi oo macnaheedu yahay waa lagu aqbalay. Daawo oo iska taxadar. Bartley Bayes waa wiil dugsi sare galaas ku dambeey dhigto asagoo oo qorsheenayo jaamacad uu gali doono kadib markuu iskoolka dhameeyo. Waxa uu ku ambahay sameynta ID kaarada faalsada ah. Dugsiga saraha ayuu ka qalin jiray, waxa uuna codsi u dirsaday 7 jaamacadood, laakiin nasiib xumo 7 waa diideen. Muuqaalka xig waxaynu arkaynaa asaga iyo saaxiibkiisa Dare iyo Sherman oo sawiro ardayda ka qaadaan si ay ku sameeyaan ID kaaro fooji ah. Dare waa nin kubad dheel jiray laakiin lugta ka jabay, waxaana dhacday inuu waayay scholarshipkiisa dhankaas iyo kubadda maadaama uu lugaha ka jabay. waana mid aanan aqoon waxa uu sameyn doono kadib markuu dugsi saraha dhameeyo. Halka Sherman uu yahay arday fariid ah, waxa uuna doonayaa inuu ka qayb qaato jaamacadda lagu magacaabo Herman oo ay saddexdiisa awoowa ay dhigan jireen, taas oo kor u qaadayso sumcadda qoyskiisa ee jaamacadda ay ku dhex leeyihiin. Muuqaalka xiga waxaynu arkaynaa Bartley Bayes oo Sherman u sheegayo inuu codsi u dirsaday jaamacadda Ohio oo ah kii 8aad, uuna rajaynayo inuu jawaab fiican ka helo. Guriga markuu imaaday Bartley Bayes, sanduuqii boostada markuu warqadii ka soo bixiyay, waxa uu ogaaday in la diiday jaamacadda Ohio, taasi oo niyad-jab ku noqotay. waxa uuna sirtaas u sheegay walaashiisa Lizzie, waxa uuna u sheegay inuusan isaga laftirkiisa uusan doonayn inuu jaamacad aado, waxa uuna ku sababeeyay inay tahay jaamacadda waqti lumis. laakiin ugu dambeyn waa uu qirtay Bartley Bayes in 8 jaamacadood loo diiday. Muuqaalka waxaynu arkaynaa xafladii qalin jabinta dugsiga sare, halkaasi oo ardayda ay faraxsan yihiin, laakiin taa cagsigeeda Bartley Bayes iyo saaxiibkiisa Dare waa kuwo murugaysan maadaama aysan aqoon waxa ay sameyn doonaan iyo jaamacadda ay gali doonaan. sidoo kale ardayda lagu magacaabo Rory oo ayadana sidoo kale aanan aqoon halka ay ku dambeyn doonto marka ay ka qalin jabiso dugsiga sare, waa ayna ku soo birtay kooxdii Bartley Bayes iyo Dare. habeenkii xigay Bartley Bayes asagoo niyad jabsan oo fikirayo, waxaa ku soo dhacday fikir ah inuu sameeyo warqad aqbalaad ah oo faalsi ah isagoo adeegsanayo jaamacad aanan jirin magaceeda. waxa uuna jaamacadaas u bixiyay Southampton Institute of Technology oo lagu neenaaso The Sheet. subaxii xigay waxa uu fikirkaas u sheegay saaxiibkiisa Sherman, halkaas uu Sherman soo dhaweeyay. waxa uuna sidoo kale ku daray inuu u sameeyo website oo jaamacadda ay leedahay, taas oo ay ardayda u dirsan karaan codsi, isla markaasna si automatic ah Gmail aqbalaad ah ugu dirayo. maalintii xigtay Bartley Bayes waxa uu waalidkiisa tusiyay warqadda aqbalaadda ah ee jaamacadda The Sheet, waa ayna ku farxeen. laakiin aabihiisa waa uu yaabay kadib markuu ogaaday inuusan weligiin maqal jaamacad lagu magacaabo The Sheet. laakiin Bartley Bayes waxa uu ku qanciyay aabihiisa inay tahay jaamacad jirto, website-kana uu ka eego. maalintii xigtay aabihiisa waxa uu u dhiibay warqad jeek ah oo $10,000 lacag ah ay ku jirto, halkaas oo uu ku daynayay inuu jaamacadda iskaga bixiyo. laakiin waxa uu ka fajacay kadib markii ay waalidkiisa u sheekeen inuu doonayo inuu soo tusiyo jaamacadda. maalintii xigtay Bartley Bayes iyo saaxiibadiisa waxay go'aansadeen inay galaan qorshihii ahaa siday u heli lahaayeen dhismo ay ku matalaan jaamacadda The Sheet, isla markaasna uu waalidkiisa ku qancin lahaa. durbadiiba Rory ayaa waxay keentay qorshe cajiib ah ayadoo sheegtay inay taqaano meel ay ku matali karaan jaamacadda The Sheet oo ah dhismo ahaan jiray isbitaal, laakiin waxay ku xujaysay in iyadana ay u sameeyaan warqad aqbalaad ah ee jaamacadda The Sheet. maalintii xigtay waxay bilaabeen inay hagaajiyaan dhismihii ay ka dhig lahaayeen jaamacadda The Sheet, waxayna bilaabeen inay nadiifiyaan oo rinjiyayaan meelaha ay isleeyihiin Bartley Bayes waalidiintiisa way arki doonaan. maalintii xigtay markay dhammeeyeen hagaajintii guriga, waxay u baahdeen qof u matalo inuu yahay maamulaha jaamacadda The Sheet, waxayna u tageen nin lagu magacaabo Ben oo ahaan jiray macallin jiimka dadka baro. qorshihii cajiibka ah markay u soo jeediyaan durbadii waa uu ka aqbalay. maalintii xigtay Bartley Bayes waalidiintiisa ayaa iskoolka keeneen, halka saaxiibkiisa Dare uu soo kireeyay dhalinyaro matasho inay arday ka yihiin jaamacaddan The Sheet.
betrabe waalidiintiisa markay arkeen dhismaha waa ay ku qanceen taasi oo farxad gelisay betrabe iyo tiimkiisa. ayagoo iska baashaalayaan waxaa albaabka kusoo gargaraacay wiil dhalinyaro ah oo dhahayo in jaamacaddan deshiid ay aqbalaad usoo dirtay. betrabe isagoo u sharaxaya inay yihiin waxaan wax feeg ah. durbadiiba meesha waxaa soo buuxiyey arday badan oo ayagana dhibaatadaas oo kala qabto. cajiib iyo amankaag ayay ku noqotay betrabe. waxa uu onogaaday in ardaydani ay codsi u dirsadeen websayte-ka, warqad aqbalaad ahna uu emailka ugu diray. maalintii xigtay markay ardayda meesha banaanka kugu soo baxeen, betrabe oo is lahaa ardaydan runta u sheeg oo ah in iskoolkan deshiid uu yahay iskool aanan jirin, ayaa markuu wejiyadooda arkay waxa uu ka dhehday inay yihiin arday daacad ah. waa uuna ka wareegay inuu runta u sheego. durbadiiba ardaydii waxay bilaabeen inay dabaal degaan, ayagoo bilaabay inay ninkiyaan, qaarna ay dabaashtaan, qaarna ay meelaha ka boodboodaan. maadaama wax macallin ah aysan joogin iskoolka, been oo ah maamulaha macmalka ee jaamacadda waxa uu go'aansaday inuu boor weyn sameeyo, arday walba uu ku qorayo waxa uu rabo iyo wax allaala wixii maskaxdiisa ku soo dhaco. halka kuwa kalena ay doonayaan inay wax iska kariyaan, halka kuwa kalena dheel iyo dhamaashaad ay kaga xiran tahay. master ben oo ah maamulaha jaamacadda deshiid oo ah nin waalan ayaa ardayda waxa uu ku dhiirigeliyaa inay bartaan wax allaala waxa ay jecel yihiin, isagoo aaminsan in waxbarashada ay tahay sidii dheesha oo kale. jaamacadda deshiid waxay noqotay jaamacad ay ku soo hagaagaan ardayda ay jaamacadaha kale soo diideen. maalintii xigtay sherman waxaa qabtay arday foodo badan. siday u garaacayeen, sherman waxa uu khirtay in jaamacadda deshiid ay tahay jaamacad aanan jirin. durbadiiba ciyaalkii waxay bilaabeen inay qorsheeyaan si ay u fadeexeen lahaayeen jaamacadda deshiid. maalintii xigtay betrabe waxaa cajiib ku noqotay in waalidiintii ardayda ay jaamacadda deshiid yimaadeen kadib markay ogaadeen jaamacadda ay tahay mid feeg ah aanan jirinna. aaday booliis taas oo keentay in jaamacadda deshiid albaabaha la iskugu laabo. laakiin sherman waxa uu betrabe u sheegay in weli ay leeyihiin rajo ah inay badbaadiyaan jaamacadda deshiid. waxa uuna u sheegay inay xareystaan laysanka aqoonsiga. maalintii dacwada maxkamadda marka la gaaray, ninka xaakinka waxa uu sheegay in haddii la doonayo in jaamacadda la ansixiyo in loo baahan yahay macallimiin iyo nidaam kala sareeyo. laakiin taa beddelkeeda betrabe waxa uu ku adkaystay in jaamacaddan ay ardayda xorriyad siiso, wax walba ay doonayaanna ay bartaan, taasoo keentay in xaakimiinta taas ay ku qanacdo la ansixiyey jaamacadda deshiid. muuqaalkana meeshaas ayuu ku egyahay daawade.